kusoo dhawaada mawduucii sagaalaad ee mawduuca geesa badane oo ciwaankiisu yahay doorka dhalinyaradu ay ku leedahay wadanka saameynta ay dhalinyaradu ku leedahay wadanka iyo ahmiyadda ay leedahay kolba sidii aad doontaan waxaan halka raacinayna marka sab artikala hoos imanaya shaqo abuurka dhalinyartu ahmiyaddu leeyahay hay-adaha aan dawliga ahayn iyo dhibaatooyinka ka jira oo iyadana sababka loo soo dhaxgelinayna halka marka dhalinyartu doorka ay ku leedahay wadanka dhalinyartu caadi ahaan waa ardayda maanta waa ubaxa maanta waa mustaqbalka berri waa dadka la rabo berri in wadankan ay xukumaan dadka marka ku xukumaya marka adigu aad gabowdo waxba aadan qabsan karin eed u baahi badan tahay dadku markay gabowaan sida carruurta kale noqonayaan marka qofkii ku daryeeli lahaa ee ku naxariisan lahaa qaabkii aad u rabayn lahayd iyo qaabkii isaga aad u tarbiyadeyso qaabka maanta dhalinyarta aad u tarbiyadeyso uma berri toole aad reflect gareyn doontaa oo ka muuqan doonta marka dhalinyarta maanta waxa loo baahan yahay door weyn bay ku leedahay isbedelka door bay ku leeyihiin siyaasadda door bay ku leeyihiin wadanku inuu deganaado oo xasiloonaado door bay ku leeyihiin taas marka iyadu saa loo dareensan yahay waxa loo baahan yahay dhalinyartu in ay noqoto dad habaysan si cilmiyeysan u fikira taas waxay u baahan tahay marka iyaga laftooda waa in faraha lagu hayo marka waa in laga warhayo waxbarashadooda ha noqoto shaqadooda ha noqoto nidaamkooda ha noqoto muwaadinimada qaabka loogu beerayo ha noqoto tusaale ahaan imanka maadooyin lagu dhigto way jirtaan oo muwaadinimada la xiriiro milgaha cilmiga civic-ka mataqaanaa cilmiga bulshada laakiin de markii hore laguma dhaqmi jirin oo buug meel iska yaalo buu ahaa oo waxaan ba odhan karaa Ethiopia inuu isbedel ka dhaco waxa keenay caro buugga lagu dhigayo ka timid iyo dastuurka laftiis waayo ardaygu galaaska markuu ka soo baxo ee civic education-ka loo dhigo waxa halka lagu barayaa xuquuqaha muwaadinka laakiin albaabka dugsiga markuu ka soo baxo xuquuqihii lagu tumanayo arkaa marka maxay ku beeraysaa taasi cuqdad halkii wadanka ugu hoggaansanaan lahaa waxay ku beeraysaa cuqdad marka maantana tii oo kale inay muuqato looma baahna cilmiga civic-ga ilmaha galaaska loogu dhigayo markuu dibadda u soo baxo waa in booliska uu ka dareemo dawladda waa inuu ka dareemo isna waa inuu shacabka sii gaarsiiyo marka kolkaasuu dhalinyarta ay sharciga ilaalinay waxa loo baahay markaa oo dhalinyarta u qaatay hadda doorasho la galaya qalalaasuu meeshuu ka dhacana inta badan waa dhalinyarta waxa loo baahay markaa dadka dhalinyarta in nidaam nabadgelyo doorashada uga qayb qaadan lahaayeen wadanku inuu ka burburo inay dhibaato ku tahay inay fahmaan iyagu iska maxabaysan yihiin shaqo la'aan ba ka cadhaysiin karta waxyaabo fara badan marka koow waxa loo baahan yahay dhalinyarta in shaqo abuur loo sameeyo shaqo abuurka loo sameynayo de mid dawlihina wuu jiraa ku aan dawli ahayn wuu jiraa hay'adaha sababtan meesha ugu soo daray hay'ado fara badan baa jira NGO fara badan oo dawli ahayn baa jira kuwa heer caalami iyo kuwa loo kala labadaba shaqooyin badan bay soo dhajiyaan laakiin nasiib darrada jirta yaa kantaroola hay'adaha ma la daba gali karaa cidna ma daba gasho tusaale yaro dhib yar haddaan soo qaatay imika ma waxaad aragtay hay'ad deegaankaaga ka hawlgalaysa imika meesha la yiraahdo shadeer maalin dhaweyd ita job waa meesha lagu xayisiiyo shaqooyinka Ethiopia oo dhan hay'adaha waxa la soo galiyay shaqo ka banaan hay'adda UN iyo UNHCR hadda waa UN maxaa shuruud laga dhigay qofku inuu yaqaan afka Tigreega waayaha aniga afka Tigreega bal af xabashiga ba dhaamay oo waa afkii wadanka oo isagu hadii la doono de aan shuruud ba ima noqon karo deegaankayga markaan joogo laakiin hadii heer federaal la joogo buu afka xabashiga laftiisa shuruud noqon kara laakiin deegaankayga marka la joogo shuruud ma noqon karo laakiin haddana bal taa waa laga wada hadli karaa waa laga wada xajoon karaa afka Tigreega shuruudda ani iga dhigaysa ninka sheedeer laga shaqaalaysiinayo ee dadka Soomaalida u adeegaya qaxootiga halkan ku ah maxay tahay taa waxa ku tusinaysaa dadnimo xumadaada ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan ita job in xayisiis noocaas iyo shuruud noocaas ay iska soo galiso oo lagu qabsanin oo la daba gelin reaction ka noocaas oo kale waxa loo baahan dawladdu markaaba ay ka jawaabto waxyaabaha soo kale oo jawaab ka bixiso oo la isku qabsado oo ninkii galiya iyo kii soo draft gareeyaba dib loo dacweeyo oo midba kala qabsado haddayna taas dhicin berri toolana waa lagu celin doonaayo waxa shuruud lagaaga dhigi doonaa hebel waa inuu yaqaano afka walaytaaga hadduu aqoon
وكل سكرينينجي halka waxaad ka garan kartaa waa kubad loo salaxayo nin aftigreega yaqaanid marka nidaamka shaqo abuurka ee dawliga ee dhalinyartu waa mid aad u hooseeya isxilqaanka dawliga ee dhalinyarta ku wajaan waa mid aad u hooseeya taa macnaheedu kama dhigna dhaliil kama dhigna laakiin waxa loo baahan yahay dawladdu in culayska ay saarto dhalinyarta shaqada lagu I don't know millions lacag la ansixiyay oo leeyahay shaqo abuur baa lagu sameeyay we don't know meel ay martay ma garan karno ilaa iyo hadda wax ma had sheeganaya oo la shaqo abuur baa loo sameeyay dhalinyartii meel kasta waa la cabanaya microfinance hadda tagto dhalinyartii xareysatay dokumentiyada iyo amaahda waxay hayeen ma jiro dad fara badan baa la soo xiriira meel kasta waa laga cabanaya meel kasta nin yar xoog badan oo wax qaadanaya waxa in laga baxo weeyaan warniko xoog badan inuu wax qaato ma balay ku dhacday haduu xoog badan yahay meel kale oo dad xoog badan uu ku tartamayo muu u kaco muxuu microfinance yar iyo dadka deynta iyo shirkadaha yar isu tagay waxaad arkaysaa nin xamaaliin isu tagtay dokumentigoodii yaa laga hormarinayaa nin kale oo la yaqaano siyaasiga waxa cadaalad ma hadee waxa loo dul qaadan kara ma nin macruufa wallahi billahi tolaahi la yaqaano oo siyaasiga waa hebel aan dhihi karno oo naan rabin halka laga sheego ayaa laga hormarinayaa xamaaliin isu tagtay dirawalin isu tagtay dad yaroo isu tagay hooyooyin isu tagay ayaa kaas laga hormarinayaa waxaas cadaalad ma aha war cadaaladda loo soo noqday microfinance-ga waxa loo baahan yahay shaqo abuurka dadka lagu tala galay sidoo ahaa inuu qabsoomo waa la idin yeedhinayaa waan ognahay laakiin kuwa u yeedhinayo dee bulshada waxaad u sheegtaan laba jeer ba iyagu baa sheegayeen TV-ga iyaga soo fadhiistay oo yiri intaas oo milyan baa shaqo abuur loogu tala galay waan xusuustaa waagi qorshaha la sameynayay waxa la yiri darajada koobaad waa shaqo abuur baa la yiri intaas oo milyan baa loo qabtay shaqo abuur boqolaal milyan yaa la yiri shaqo abuur baa lagu sameynaya anigu markaa waan farxaybo xafiiska caafimaadka qorshihiisa wax ka sameynayno anagu waxaan islahayn ahmiyadda koobaad laga dhiga caafimaadka laakiin markii la yiri ahmiyadda koobaad oo shaqo abuurka waan ku farxaybo intaas oo dhalinyaro haday shaqo helayso dib baan isaga fadhiisanay marka wixii xaguu maray meeshu maray de waxa weyn ninka siyaasiga xoog badan baa qaatay marka wax loo baahan yahay dhalinyarta in shaqo abuur loo sameeyo si ay wadankooda u ilaaliyaan iyaguna fadqalalaha iyo wixii dib ku keenaya wadankooda inay u gaajoodaan oo tan macnaheedu kama dhiga de hal mar in dadka loo wada barwaaqaynayo oo sifooyin ilaahu inuu leeyahay baa jiro dawladdu si kasta haday xoolo u hayso kun faya kun wax liila ma adeegsan karto maanta oo intay basaa tira wax sifo ilaahu inuu iska leeyahay taas roobka laftiisu markuu daayo ilaahay maalin walba dadka roob meel kasta uu ku gaarsiin kara laakiin waxa la rabaa dadka bini'aadmiina wax ku qaataan marka dawladda lafteedu step by step ba wax loo gaarsiin iyaga laftooduna waa inayna de matqana reaction wadankooda ay ku burburinayaan ama ay ku dhibaataynayaan marnaba ayna sameeynin hay'adaha haddaan dib ugu soo noqdo waxa jirta xafiisyada dawladda xoogaal baan u ahaan xafiiska caafimaadkan xoogaal loo hay beerahan xoogaal loo hay DBB baan xoogaal loo hay ibri angal dhinaca hay'adaha iyo qaabkii shiiska loola galay in xoogaal loo hay heer federaal waxa ka jira musuq fara badan musuqa ugu badan ee maanta wax lagu cuno ee wasiirka beeraha ama wasiirka caafimaadka ee heer federaal ama wasiirka maaliyadda ama wasiirka mataqaana xafiis kasta jooga musuqa ugu badan ee maanta wax ku cuno waa hay'adaha heshiis baa la soo galaa nin walba wuxuu samaystay hay'ad loo kaala oo uu garabka ku hayo marka lacagtii la soo marin lahaa xafiiska caafimaadka ay ahayd federaalku wasaaradda caafimaadka federaalku lacagtii ahayd xafiiska caafimaadka in toos ugu soo shubto laguma soo shubo maxaa la samaynayaa hay'ad yar oo loo kaala la samaystayo taa baa la oranaya heshiis la galo oo waxyaabaha sa idin qabanaysa waraaqo wax la qorqoraya kadibna madaxxabsiyeedka halkan joogan baa saxiix ugu dhufanaya ama beeraha jooga ama meel kale ha joogo kadibna kubaddu maxay dhex maraysaa hay'adda ninka jooga iyo ninka xafiiskan jooga lacagba ma soo marto xagga xafiisyada heer kale lacag saasi ma soo marto lacagtu marka hay'adaha sa gashaa shaqaalihii dadkii qaadanayaan soo maaha iyaga sadgaraysanayaba even hay'addu waxay xulataa xitaa meeshii ka howlgelayso iyada ku yeedhinaysa shaqaalaha qaadanayso iyada ku yeedhinaysa ciday doontay shuruuday doontay u dhiganaysa iyada qaadanaysa dhalinyarta meeshii kale laga shaqo gelin lahaana saasay noqotay marka waa in dib loo eego hay'adaha heshiisyada la gelayo inta badan hay'adda xafiis kasta waxa heshiiska la gala waa madaxxabsiyeedka waxay ahayd qaybta NGO-yada jirta planning and programming baa jira oo waxa qaabilsan shaqo kuma laha heshiisun baa ayr
warxitaa qaarkood waxaadan ka helaynin dukumentigii heshiiska aad ku gasheen adoo agaasin haddaad tidhaahda ii keena dukumentigii ma helaysid waa lagaa qarinayaaba hadda agaasin baa tahay arrintaasi ay qaabilsan tahay oo kii soo commenti garayn lahaa heshiiskan qaadan lahaa ee soo analyse garayn lahaa ee odhan lahaa waxaan uu iska kay bixinaya iyo iskama kay bixinayo kama warhaynaysid marka meesha kale ee ahayd dadka in laga hawlgeliyo hay-adahaas ay ahayd hay-adihiina qaarna waa kuwan xaggaa maray kuwii kalena waaba kuwan dee afka tigreega kaaga dhigaya shuruud marka dhalinyarta meesha kale laga shaqo gelin lahaa ee loo baahan yahay in la kantaroolo waa hay-adaha marka dawladdu waxa loo baahan yahay hay-adaha inay kantaroosho shaqo gelintooda shuruudda ay dhigayaan waxa ay dhigayaan maxay ku qabanayaan in la analyse garayo project walba on dan kugu jirin billions waxaad arkaysaa dadka magacooda inta lagu cunay halkan faa'iidada ka soo galaysa ayna 1% dhanayn damiirka noocaas qofka saxeexaya ee damiirka aadka u liita waxa loo baahan yahay marka in la dabagalo waxyaabaha noocaas oo dawladdu ay indha gaar u yeelato dhalinyartu si ay shaqo uga helaan arrinta dhalinyarta haddaan dib ugu soo noqdo waxa loo baahan yahay wadan kale ma lihidin war wadankiinu ama ku shaqo la'aada ama ku barwaaqaysnaada inaad tahriibtaan oo badda aad ku daadataan muhiim ah halkan adoo ku gaajaysan oo maal walba gurigaaga ku nagaada oo imika hooyada haday leedahay aqal Soomaali haddaad ku nagaato maalin walba geed iyo xun baa la beeriyo horumarka lagu sheegay laftiis waa step by step geedka aad ka beertay dirgad aqal Soomaaliga un baad berina dirgad ama sarab ka dhigi kadibna dhagax baad ka dhigi doontaa wax xun baad taransatay laakiin haddaad dhaqaaqdo ama waad dhimani ama wax halka imika dadka dibadda tagay waa design loogu talagalay inay ka bixino ninku $100 u helay isagu baa dib u cunaya baahiyaha faraha badan ee loo sameeyay iyo canshuuraadkan iyo taxiga un bay kaga bixi doontaa waa nin uu xamaalaya Ingiriiska bulshada un buu faa'iido dadka halka ka tagay ama Mareykanka tagaan ama meel kale ha tagaan dadka un bay faa'iido u yihiin inaga wax faa'iido ah waagi hore nin ma garanaya ta kale ma halkan uu horumar ka dhacay mise wixii baa yaraaday waagi hore waxa jiri jirtay waxaan jeclahay inaan xuso anagu awar markaan joognay gabadh koraad la yiraahdo reewaara yaa ugu soo lacag dir badnayd oo dadka waxa la oran jiray duu markuu tagayo dibadda ilaahay koraad oo kale ka dhig baa la oran jiray laakiin hadda tiim ma arko qofka dibadda jooga dad badan oo dibadda jooga halkan aba laga biilaa kolka waxa soorani what's the meaning qofku halka uu ka joogo waayahay in la kala maqnaado waxa ka fiican bay in la isu yimaado wax la wada qabo halkan aayar ma taqaana wax la wada xarxaadho oo dadkina ta kale dhibka kale Soomaalida haysata dee wuxuu kaga baxayaa ticket qofku wuxuu oranayaa every 3 months mar baan imanaya dee way ma go'an baagun baad ku jira adoo guri yar istamiina ku dhaamin oo intaad iska joogto 3-4 sano oo waxaaga soo dirato dhowr maqsin oo saraba caruurta u dhisade halkaad go'an baag iyo transition kaga jiri marka waxa loo baahan yahay dhalinyartu in ay wadanka dibadiisa u ordaan wax micni kuma jirto war meeshina ku gaajeysnaada u rafaada ka wax maanta ku hayo waa sax ka aan ku hayninuna waad heli doontaa iimaan baan leenahay marka iyagana intaasan kaga bixi lahaa dardaarankooda iyo mawduuca dhalinyarta